muqdisho saaka waa nabad waa la baajiyey mudaharaadkii la qorsheynayay in halkaasi uu ka dhaco. waxaa kale oo ku baaqday muqdisho saaki dhiig laga cabsi qabay inuu daato maadaama mudaharaadka la isaga hor imaanayay oo ciidan hubaysan ay isaga hor imaanayeen. arrintani waxa ay timid kadib waanwaan xalay saq dhexe heshiis ku soo dhammaatay oo dad siyaasiyiin iyo ganacsato ah ay u kala dab qaadayeen mucaaradka iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba in uu baaqdo mudaharaadka waxaa la sheegayaa inay guul weyn u tahay mucaaradka Soomaaliya. xasan sheekh maxamuudna ay ku tahay fashil. tan arrimoodba marka la fiiriyo mucaaradka Soomaaliya tan waxay u tahay guul weyn oo ay gaareen. markii koobaad waa marka ugu horeysa mucaaradka ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya kaga hor yimid wax aan siyaasad ama doorasho ahayn balse shacab dhibaataysan oo la garab istaagayo. taas oo mucaaradku uu sheegay in dowladdii madaxda ka ahayd ay ka qabanayaan kadib markii ay iyagu dhibaato si toosa ugu geysanayaan. waa guusha koowaad ee mucaaradka. tan labaad in iyadoon wax banaanbax ah uusan dhicinin dowladda federaalk ee Soomaaliya ay culays maskaxeed iyo mid bulsho dareento, taas oo mucaaradka u noqonaysa guul. tan ayaa timid kadib markii dowladdu jawrfal ku samaysay dad shacab ah, waxaana muuqanaysay in shacabku inta badan ay la jiraan dhanka mucaaradka maadaama dowladdu shaqadeedii ay gabtay mid cagsigeedana ay ku dhaqaaqday. 3 in qofka ama dadka laga yaabayay in maanta ay dhiman lahaayeen ama ay dhaawacmi lahaayeen la baajiyey, taas oo mucaaradku uu sameeyey in aysan sameynin mudaharaadkaasi, oo haddii ay ku adkaysan lahaayeen go-aankooda soona istaagi lahaayeen baraha ay calaamadaysteen dowladdu ay kala hortegi lahayd awood ciidan, halkaasna ay ka imaan lahayd dhibaato dhimasho iyo dhaawac. 4 in haddii ay dhacdo wadahadallo hor leh oo mucaaradku la gelayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyadoo intii hore ka nugul dowladdu ay noqon doonto in mucaaradka ay u hoggaansanto dalabaadkooda maadaama haatan culays aada u weyn la saaray, ayna dareemayaan in dhanka shacabka ay jiraan mucaaradka iyo shacabka ay wada socdaan. 5 in haddii mucaaradku ay ku adkaysan lahaayeen dibadbaxa inuu dhaco dadkii la filayay ay suurtagal ahayd in la waayo, sidaasi daraaddeedna mucaaradku ay dareemi lahaayeen weji gabax maadaama dadku inta badan ay ka cabsanayaan xabadaha la ridayo. iyadoo niyad ahaan loo taageersan yahay waxaa suurtagal noqon lahayd in shacabku halkaasi aysan imaanin ama aysan soo xaadirin. taasi waxay weji gabax ku ahaan lahayd mucaaradka. haatan waa uu baaqday mudaharaadkii arrintaasi lagu arki lahay. mucaaradkana waxay u tahay guul weyn oo waxay aaminsan tahay dowladda federaalk ee Soomaaliya in mucaaradku ay haystaan shacab aad u ballaaran oo ah kuwii la barakiciyey. waa dhab xaaladaha iskiidkiidka ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo mucaaradka halkan kuma dhammaanin. 9 beri kadib ayay ballansan yihiin. lama oga sida ay xaaladdu noqon doonto. ma dowladda ayaa ogolaan doonta mudaharaadka si sharciyana bise mar kale waxa uu noqon doonaa mid hub iyo ciidan la isku awood sheegto. madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr jeer oo mucaaradka ballamo la galay iyo inuu fulin doono waa uga baxay oo ugu dambeysay tii uu ayaga ku kala qaybiyey. haddaba daawade adiga aragtidaada maxay kuula muuqataa xaaladan Muqdisho?